banaanbax ayaa ka dhashay dil loo geystay darawal ku shaqaysta gaadiidka bajaajka. Dilkan ayaa ka dhacay degmada Xamar Jajab waxaana geystay askari ka tirsan ciidanka milishiibiyada oo ah kuwa qaabilsan canshuuraha. darawalada gaadiidka bajaajka ayaa ka hadlay dilka loo geystay mid ka mid ah darawalada gaadiidka bajaajka. madaxweynaha injineer Yiriso waxa uu baaqaynaa aniga mootaale haddaan ahnay dad xoogsataan ahnay xoogsatadana dad oo bajaajley hadda waa laga warhayaa magaalada dadka hadda oo ugu dhibka badan dhibaatooyinka inta badan qaraxyada iyo la kulmaan iyaga ugu badan yihiin dawladda kaligeed qaraxa wax kuma soo gaaraan badana 100% bajaajleeda waa wax qaraxa ku baabao iyaga amniga ah kala shaqeeyay ee haddani milishibiyo dad oo milishibiyo maxaa la lahayd bajaajleeda nafta u galeen oo qoray xataa si loo xabeestaan aqooni waxaan ku hadlayaa shacabka Soomaaliyeed magacooda marka labaad waxaan ku hadlayaa magaca hooyooyinka Soomaaliyeed ee maalin walba la gumaadayo wiilashooda yaryarka ah ee lagu dilaayo $2 iyo $1 shacabka wadooyinka laga xiranayo wiilasha yaryarka inta tahriibada aan ka soo celinna aan bajaajyada inta u gadanno $1 lagu dilaayo dirayska uu ku dilaayo dawladda federaalka waa inay ka hadasho hadday ka hadli weysana shacabka mudaharaadaya ama asan oo kamid la badalaya saaga waxa subaxnin walaal kanaalka lagu dilay sidaas darteed subaxne hadda wadada waa furnay gudoomiyaha waa isarna gudoomiyaha wuxuu ii imaada oo aan wixii cabasho qabtiin noo sheegta waxaan ka qabanayna gudoomiyaha uu tagayna waa la fariisanayna haddii oo cabashada wax loo qaban waayo oo milishiibida meel laga saari waayo oo wada cad noo laga bixi waayo gudoomiyaha gobolka iyo muxuu ahaa iyo dawladda waxaan u sheegaynaa ina anaga muxuu ahaa amkaas wax wada noo furana inay sijireenin باقو عودرا قدوميسو باقو درا قاصده وين مرشيبلدا انا ما ديدان لعت عشورتا ساستا عشورتا ديرلنا هذا القدوميه ولكن واكنا مخونو بلن قادينا اسا او تغنو او ما وي عبش قبنو او ما او شيغنو قدوميه وي عبش قبنو او تغينا وانو شيغنا اقبلاتيسنا وا ka aqbalnay wadadina waa furnay gudoomiyahana wuxuu ahay waa kana hadirtan wadadina oo furta waxa goobta soo gaaray gudoomiyaha degmada Xamar Jajab si uu la hadlo dhibanayaasha isugu soo baxay goobtan maanta markii dhibka dhacay muujiyay dareenkooda iyo sida ay wax yihiin waxaan uga mahadcelinayaa sida ay nooga aqbaleen inay qaataan hadalkii ama amarkii oo soo siiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ee ah inaan kala fasaxno in la aqbalay cabashooyinkooda gobolka Banaadir fariinta ay maanta ay halkaan isugu yimaadeen ay gaartay gudoomiyaha sidoo kale dadweynaha wuxuu kala hadlay xafiiskiisa isagoo u marsiinay warbaahinta anigana wuxuu soo faray inaan adikeedii imaado oo aan wixii aan idin kala kulmayn hadda aan la wadaagi doono 100% dadweynaha dareenkooda muujiyay waxaan uga mahadcelinayaa sida ay u dhageysteen fariintii aan ka siday gudoomiyaha waxa sharciga la marsiin doonaa qofkii dhibka geystay saakay halkan muxuu ahaa dilka ku geystay mana aqbali doonto dawladda Soomaaliya muwaadin Soomaaliyeed oo canshuur bixiye ah si gardarro ah lagu dilo ugu dambeyn guddiga iskaashatooyinka gaadiidka bajaajka ayaa cabasho ka muujiyay qaabka ay ula dhaqmaan askarta gobolka Banaadir iyo idaacada balsan ka socda waa mahadsantiin booqashada ma soo booqateen oo ku saabsan dhibaatada haysata bajaajley dhibaatada loo geysanayo dilka loo geysanayo jirdilka loo geysanayo waxaan ka hadlayaa maanta anoo ah gudoomiye ku-xigeenka ururka iskaashatooyinka bajaajka gobolka Banaadir dhibka naga haysta ciidamada dawladda ama military ha ahaado ama booliis ha ahaado ama milishibiya ha ahaado dilkan ay nagu sameeyeen jirdilka ay nagu wadaan cid oo dawladda ka mida oon ka hadlayn dhibaatadana la ku hayo oo dilka foosha xun oo nin miskiina oo bajaajlaa oo soo shaqo tegey $1 iyo bar iyo $2 u soo shaqo tegey in loogu imaado wadada intii loogu imaado in la yiraahdo lacag baada isii haddii uu waayana ama ka doodana xabad lagu dhufanayo ama soosta la weydiiyo oo yiraahdo soostada inta anigu waxaan ka mid ahay bajaajlayaashan ka mid ah waxa igu dhacay nin qorilaa oo milishibiya joojiyay wadada dhexdeeda ugu joojiyay warqadii soostada laga rabaa bayiro waan watay warqadii soostada waxaan ku yiri baakin aan galo wadada aan furo wuxuu igu jawaabay qoriga liifkiisa way igu dhuftay dhaawaci waa in tusaya igu yaala waa ka qoriga liifkiisa waa fiiriye si fiican u fiiriye waa qoriga liifkiisa anoo sharciga igi wata
oo doonaya inaan intaa baakin galo sharcigayga inaan tuso inta ana baakinba gelinba weerarkaas igu qaad okay nin kale iga qab halkan aan hadda ku suganahay ayay wax yar dhankan kaga beegan tahay halka lagu deeyay marxuumka darawalka bajaajlaha ahaa wax sida la sheegay waxa uu marxuumku ku waayay naftiisa $1 iyo bar oo askariga ka codsaday kanaan Cabdiqaadir Xuseen warbaahinta dalsan Muqdisho